laba kelmadood baan isku day doonaa inaan aad u soo koobo hadii Ilaahay idmo dhalinyarada zamankan aynu joogno nool iyo cilaaqada Ilaahay la lahaayeen marka waa zaman iyo dhalinyaro iyo casrigan aynu joogno modern iyo Ilaahay afar qodob waa weey farqadaba waa weyn horta muqaddimo waxaan uga dhigayaa zamankan aynu ku noolnahay waa zaman adag weey oo annaga generation kayga da'deedii annaga maanta mashaakilka idin haysta annagana ma haysan annaga zamankaanu joognay anu gabilay baan ku dhashay xilli hore oo ku ababay xamar baa tagay way Soomaali bariga caasimad maxay tolay u ahaan jirtay TV aan arko noloshayda waxay ugu horeysay Djibouti TV ba marka gabileen TV kuma arag xamar baan tagay TV kuma arag waan maqli jiray TV waxa la inuu jiro xamar markaan tagay waan maqli jiray haddana xamar waxaan ku maqlay anoo arday ah oo quraan meel ku xafidaya waxaan maqlay video wax la yiraahdo soo baxay waan maqlayna markaas qolooyinka malcaamadan la dhigtaa dad baa maalqabeen ahaa abayaashood markaas oo xalay video baan daawanay nagu oran jirin kelmadaas malcaamada maanta video-gu waa baxay waajadi yaro meel la gelinayo halka ka soo baxayo wixii bada marka waan maqli jirnay cinema waa jiray kastoona gabil jirin cinema ilaa imkan aanu jirin laakiin xamar uu jiray cinema bariga bimaana waxaan idinka sheekeynaa waxaan leeyahay anagu zamanka aan ku noolayn zaman gaaban oo 24 hours ku ay ciriiri ku dhaafayaan oo malcaamaduhu already iska yihiino culture thaqaafo Soomaaliyeed aan jirin baanu haysanaa anagu aabayaasha iyo hooyooyinka iyo habaryaraha iyo dhamaantayaba thaqaafada Soomaaliyeed ayaan ku soo ababnay in yar ba chance haysatay inay cilaaqad dibadeed inay lahaato marka waxaan ku weynaanoon ku qaangaadnay oo jaamacadihii markii dambe Masar iyo Yurub markaan tagnay waxaan tagnay annagoo already samaysan oo Soomaali ah oo muslimiin ah ayaanu tagnay wixii dambeenu kala kulanay dadkii dibadda aanu kala kulanay waxayagii baanu ku qiyaasnay waxa la wixii naloo sheego islaamku muxuu ka leeyahay wixii naloo sheego dhaqankii Soomaalidu muxuu ka leeyahay bimaana maxaanu haysanay halbeeg baanu gunteeda hoose ku haysanay aan dhaqaaqin dhishku soo ma dhaqaaqa mar dhishkeegu mu dhaqaaqin way soo dhaaftay zamankan imika aynu joognaan ana idin la joogo marba waxaan garay Instagram waan leeyahay marka waxa yaraan dhalay baa sameeyay oo dibadaha jooga sameeyay markaas waxaad leedahay aaba ku aruuriye balgal waan galay dhawaan beed mala dhowr maalmood ka horbay ahayd markii koowaad noo sheegay aan galo Facebook waa yar Instagram-ka waan galay markaas waxaan arkay waxa iga yaabay baan arkay markaas dhabankan qabsado waxaan yiri war ninka qofka dhalinyarada ee waxaan arkaya adduunka dhan u furan adduunka idil u furan waxa soo sawir u soo dhacayaan waxa soo video u soo dhacayaan waxa soo culture ah la tacaamulay inaan badee Soomaha mise namadu bagala inaan ba wadaga waxaan yiri marka sideebuu qofkaasi resistant u lahaan karaa sideebuu waxaan u muqaawamayn karaa sidoo waxaan iskaga caabi karaa horta anu ku yaraa waxaan ku leeyahay baalka iska wadwado anu iska xirayaa baan anu baalka horta anu iska xirayaa waa iska xiray oo waxaan arkay shahawaadka ku jira intay leeyihiin iyo in qaraa'iska waa doonidaada hoose si walba la doonayo in loo dhaqaajiyo oo waliba aanu ahayn qof iyo laba iyo yani qof inaan la saaxiibo ma inuu saas oo kale deedna iyadu kelmado hal qof waad ka caabin kartaa gaashaan kaliya hal qof waranku kugu soo turo laakiin marka tiraahdo adeer ka warrama global worldwide baan macaasida iyo shahawaadka adduunka joogo dhan baan xabadka u dhiganay qofka ilaa ka warrama يعني ورمها inagu socdo iyo zamankan aan noolnahay zaman adag inuu yahay marka nin baa qoray kitaab waa professor suuri ah
dadka wadankooda imka ka dumay Dr. Abdulkarim Bakar balena ka Google gareeya Bakar laba nin baa jiray Bakar Rushdi Bakar iyo Abdulkarim Bakar labana waa u baahayeen mid 27 buu dhintay Nobel Prize buu candidate u ahaa in badan nin filosof muslim u ahaa ninkan imka waa nool waragayna nool ninkaas buug wuxuu qoray la yiraahdo العيش في زماننا الصعب sideen ugu noolaadaa zaman kan aan noolnahay ee adag zaman adag baynu ku noolnahay sabeen u noolaanaa maanta adduunkii lama kala laha Hargeysa joogtaan jigjiga yar jaamacadii new generation curriculum-ka aad dhigataan adduunka oo dhan baa lagu dhigtaa computer-ka aad gashaa adduunka oo dhan baa laga wada daawadaa nidaamkeena siyaasiga waa kii adduunka ee doorashada ahaa ee multiple party ahaa weeyaan Allahu musta'an leerkii wanaga wada isticmaalana technology wanaga wada isticmaalana wax walba wada update baynu adduunkii aynu ka wada nahay wadooyinkeena waynaga doonayna in kastoo wada godad badan leeyihiin laakiin hadda waynaga rabeen wadooyinkii adduunka kale aynu sabaysano waynaga doonayna dawladda hoose adduunka oo dhan ay ka jirtaa intaasi New York bay taala Bonn bay taala Paris bay taala Peking bay taala yani style kan aynu noolnahay waa style worldwide no more Somali no more Muslim no more Christian ma jirto adduunka zamankan aynu joogno waxaad moodaa adduunka inta laga qaaday daboolkii inta laga qaaday in la yiri ka dhigamiya iska haysta ka war askaba haysta iska daa iska haysta technology ma fiicna iska daa ay abjo ba iska daa oo baasanta saasa ma haysan aad baad u maasantahay jazakallahu khair ahsan Allah ilayk adeer jazakallahu khair sheekh waxaan u jeedaa maanta meel aynu ku gaban kara ma jirto meel allaala meel aynu ku gaban karna ma jirto Senegal baan tagay tuulo yar baa masaajid la geeyay malcaamadaheena iyo kala lagu dhigtaa loox bay ku akhristaan quraankii bay sideen u sabciyaan macallinkii waxaan u tagay ardayda yar haystay oo markaanu darsigii dhameynay facebookiisa yaraa ku jira intiisa yareed ku jirta halka adduunkiisa kala soconaya sheekh maxaad qabanaysaa baa ku markaas maxay tuluuxu saaxiibada iyo New York taksiila ka ah ayaa la sheekaysanayaa biigu waa West Africa geeskeeda inaguna halkeen joognaa marka maxaan u socdaa aqoonyahan baad u socotaa inaad noqotaan waxa la idin ababinaya inaad aqoonyahan noqotaan intellectuals inaad noqotaan baa la idin ababinaya waxoogaa inaad ku shaqaysataan waa iska alright ceeb ma qofku qaligiisa inuu ku shaqaysto ceeb ma waa mihnadii u bartay leene ceeb ma taas laakiin inaad wax u baratid inaad lacag ku heshaa ceeba values-ki knowledge-ka qiimihii lacag waxbarashadu waa waxbarashadu iskeed bay qiimo u tahay marka haddaan nidhaahno anu waxaan wax u baranayaa just inaan lacag ku helo waa mushkilad weyn oo xadaari waan ka sheekeyn doonaa waa mushkilad weyn oo xadaari ah weey laakiin inaad wax u baratid waxbarashada awgeed inaad wax u baratid inaad bani aadamnimada kor u qaadid inaad wax u baratid awgeed inaanay maskaxdaadu dheeraad kugu noqonin hada mushkila adigoo nool haddii maskaxdaadu dheeraad kugu noqoto adiga oo sidii kari weydo iyadii wax lagu gagashado fa zamanka aanu joognaa waa zamanka weyn zaman la isku furmay malihi village kaliya noqday waxa meediyada laga sheego laakiin lama kala laha maanta adduunkii muslimiintii galbeedkii muslimiinta joogaan reer waqooyiga adduunka waqooyiga degana koonfur bay tageen dadkii koonfurta degana waa kuwa u qaxaya waqooyiga u qaxaya lacag dooranaya Soma wala isdhaafayaa saddexda caasimadood afarta airport waa weyn adduunka hadaad martid Dubai kan Frankfurt kan Ingiriiska hadaad martid waad yaabi waxa adduun isdhaafaya kala wada midab kala wada kalar marka adduunkii waxaad moodaa in la yiri isku furmaay zamankaas ay muxootolay ayaynu ku noolnahay marka cid walibana waxa isku dayaysaa inay qiyamkeedii ilaashato adduunka waxa ka socdana ay la socoto dadku marka waxay noqdaan maxay laba qaybood
qayb tiraahda adduunkan wax allaala waxa horumarkiisa ma doonayo anigu isolated ma doonayo xuma iyo wanaag waxaad wadada iga xid gaalow adeerna kale nabadgeli saajikaygaasaan fadhiyaya kitaabkaygaasaan laqbaynaya khamiiskaygaasaan xidhnaanaya ubadkayga iyo hablahayga waan u wada xijaabaya gaal annagu isma naqaan handarab meel kale hay geynina hadda kii caadigan ka hadlayaan haryaadheega kaasi waa mid koox kale waxay aaminsan tahay oo maxay odhanaysaa adduunkaas ku furno albaabada inoo fura daaqadaha inoo fura saqafka inaga qaada yaa wax walba haynu qaadano war waynu habsaanay fadhiga inaga kiciya tollaa Yurub way horumartay Mareykanna raaciya hatta ragba yaa dumar ba inagu dara lagu horumaraa bahashay qaarna waa kooxdaas koox saddexaad baa jirto markaan waa ka mid ahay kooxdaas saddexaad maxay oranaysaa muslim baan ahay identity baan leeyahay kitaab iyo quraan baan leeyahay bari baan adduunka ka talin jiray maanta se waa layga gacan sareeya waana layga aqoon badan yahay waana layga xoog badan yahay hatta akhlaaqdii aan ku faani jiray oran jiray anigu ethics iyo values baan adduunka aan dhaamaa tii lafteedii waxba soo galay tii lafteedii sideedii hore maanta ma ihi marka maxaa sameeyaa waxaan leeyahay jirid baan leeyahay jirideedii waan ilaashanayaa wixii anfaca ee adduunkayga anfacana waan amaahanayaa sidii aniga shalay la iga amaahday aqoonta ee loogu horumaray aniguna maanta waan accept gareynayaa mar labaad inaan arday noqdo meelaha la igaga tagay arday u noqdo marka waa inaan qiraa in meel la igaga tagay hadaanan qirin in meel la igaga tagay waa saxsan tahay qofkuna hadaanu qirin inuu buko dhakhtar miyuu tagaa uma tagaysid idan saddexda gruuba caalamka islaamiga maanta u yahay oo dinku aad ka bitiin koox isolated ah annaga iyo ilbaxnimada adduunka ku jira cilaaqa ma doonayaan lahaana leh koox kale oo maxay sameynaysaa assimilation full way ku dhex milmayaan reer galbeedka iyo gaaladii bay ku dhex milmay ma kala garanaysid midabkunba u kala duwan laakiin guntii hoose ee dareenkii waa isaga kaasina waa koox inagu dhex jirto idila joogta wadankan aynu joogno maanta iyo koox saddexaad oo leh warmay muslim baynu nahay laakiin waxaan rabnaa muslim mucaasir inaan noqdo oo zamankan nool baahiyaha zamankan ka jawaabi karaya aqoonta zamankan leh wixii la igu dhaamo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam geed guntii la soo gooyay ayuu khudbada jimcaha marka uu nasanayo ku dul akhri jiray islaan joogtay Madiina nin u shaqayn jiray oo yaqaan xirfadda najaarnimada ayay ku tiri geed weyn soo gooyo 3 darajo minbar 3 darajo ah nabiga u sameeyay sallallahu alayhi wasallam aqoon uu nabigu yaqaanay may ahayn uu amaahday minbarkiiba ku fariistay geedkii yaraaba markuu khudbadii koray geedkii uu nabigu ku fariisan jiray khudbadii nabigu markuu koray geedkiiba dhawaaq iyo laga maqlay oohin nabiga baa ka tagay leeyahay geed baa nabi maxamed u dareen celinaya soo daadegay nabiga geedkiiba salaamo jannada ku kulmi doonaa iska sabir buu ku taa uma socdo waxaan u socdaa inuu nabigu amaahday maxay najaarnimo waraaqu diray ilaa nabigu Madiina kaliya kuma noolan sallallahu wuxuu bilaabay inuu diplomatic inuu diro waraaqo rasaa'il siyaasadeed markaas lagu yiri dadkan aad wax u diraysaa ma akhriyaan warqadaan shaabad lahayn arabna shaabad bay aqoon markaas maxaa sameeyaa ukhtum lahu baa ukhtum maxaan ku khatimaa buu leeyahay muhammadur rasuulullaahi miyaanad ahayn dawata shaabadaad markaas khaatam ii sameeyaa khaatam markaas maxamed khaatam loo sameeyay fargalde khaatamka maxaa ku yaalay muhammadun rasuulullah illa imika rasaa'ilki way yaalaa turkiga iyo masar iyo dimashq iyo khatmigi nabigu oo yaala marka nabigu muxuu amaahday shaabad aanu aqoonin thaqaafadii iyo culture-kii dadkii uu ka mid ahaa حتى حق اللبس حتى حق اللبس إسلام كل لبس جار أرتب ماله
islaamku labis gaar anagu wadaadaan naamadu waa iska alright iska alright laakiin islaamku labis gaar oo islaamku dharka ha wada xidho ma jiro nabi maxamed wax kasta xilligiisii waa uu xidhay sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari nabi maxamed hatta wuxuu xidhay isku joog sayruura la oran jiray siyara la oran jiray madiina yaman looga keenay markaas intuu isku soo leen madow iyo leen cas bay lahayd markaas intuu ku soo dhacay buu saxaabadii u soo baxay markaas wala eegeen sallallahu alayhi wasallam quruxdiisa dee waa nabi maxamed fashion bad waa haysataa ku yar meelahan isjabinayeen nabi maxamed oo raayna soo baxay markaas wada eegeen yiraahdo markaas mid baa yiri alla rasuul qurux badnida Abu Bakar baa yiri ya rasuulallah ma ajmalak nabi maxamed xaragoonaya nabi maxamed qurux badnida markaas mid baa istaago yiri isku joogan aan isii dadka la qaar baa imtixaan isiibu intuu nabiga baxay buu soo duuduubayo jubadiisii buu ku soo dhaco uu siiyay saxaabadii baa yiri war wad ogtahay nabiga inaanu may aqoonin maanta uu faraxsanaaye maxaad inteer uga qaaday buu ku yiraahday بعد تيار وقعد بعد ديس النبي قصص وقاسي ورانو كما حرغوني لا ku xaragoodo kuma tala gelin markaan dhinto ayaan doonayaa in la igu kafno maro taabatay jirka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam eeg fishan malaha mise fishan malahayn safisha kama akhridaan ninka fishigiisa muxuu ahaa inuu dhiman doono ogaa markaa islaha bal waad kulay nabi maxamed jirkiisa ka barakayso meesha yaa lagu cadaabin sallallahu alayhi wasallam saxaabada xadiiska wari waxay waanu aragnay isagoo maradii lagu duuduubo oo aragnay bay yiraahdeen waxa dhan sarwaal nabi maxamed waa xidhay wuu toshay ma xidhan bay tiraash sarwaalkan kurdida ee waa weyn ee dulu caleha nabi maxamed sarwaal buu toshay sallallahu alayhi wasallam xadiiska bukhari idin ku yaala waxa nabi maxamed xidhan xilligiisii ma jiro sallallahu alayhi wasallam okay lidalika hadaba saamaynta inoogu weyn maadaama aad jaamacad aad joogtaan sidii wacdigii masaajidka marba idin la hadlo wacdiga masaajidku wacdi goori uu leeyahay dar Sheekh Maxamed Meed baan xarkana iyo taayid walaalkii baan ka wadaynaa laakiin maadaama aad jaamacad aad joogtaan de waxaan filayaa inaad meel sare aqoontiinu joogto marka ka sayid kala hadlayga raali ahaada soo sax ma hadee warwantuunka aynu maanta marayno cidda gadwadeenka ka ah gadwadeenka aqooneed iyo gadwadeenka xadaaradeed cidda ka imaanta waa reer galbeed waa Mareykan iyo Yurubta galbeed Japan ku dar same culture Australia ku dar waa reer isla qaxay thaqafadaas maanta adduunka ka talisa maxay ka talisaa ilaahay baa adduunka maamula laakiin hogaamintii maanta yaa leh ta muslimiintii ma laha bayna isku sheegna ma laha ilaahay ya waynu jecelnaa inaynu bari baynu hayn laakiin maanta ma nihin marka thaqafada halkaasna thaqafad ku eeg culture-ka reer galbeedku culture ku eeg Yurub iyo Mareykan ma waan idin sheegay xuduudihii bay ka soo talawday ka soo jabsatay namat stereotype ay yiraahdaan sociology-ga stereotype-ka ay rabaan in lagu noolaado waa reer galbeed mentality-giisa in la faafiyo ayaa la rabaa oo markaa sida diinta kristanka loo jabiyay kiniisadda gudaheeda loogu jabiyay ee wadaadkii kiniisadda fadhiyay loo jabiyay waa laga adkaaday de bari waa duug haystay ninka wadaadkii nin baa shaah la cabay iska sheekaysanna warqadana kan iska dhigay Sheekh Axmed kow ya informal ya mar baa la sheekaystay nin kiniisadaha Ingiriiska oo dhan haysta London baan isku nimid very humble oo aqoon durugsan loo 3 ilaa 4 PhD haysto kiniisadaha Ingiriiska oo dhan bimaana waa lord boqorada Ingiriiska magacawda way macnihiisu marka ma yaro qolooyinka masaajidka iska qabsaday ma halkan may markaasaan sheekaysanay aniga iyo isaga iyo nin Brazilian oo pop Brazilian oo Brazil ka yimid marka shirbar isku dhibid Brazil ku xusameeyaa markaan kafeega la cabayo intuu baxbu baasheertu iska saaray buu sigaar cabaa dibadda ugu imaadayo warsoodii wadaadka ahaa wadaad masiixiyadii markaas waa feeraa buu ku leeyahay kiniisadda sigaar la cabeen ma kiniisadda oo iska cabeen cidna hay sheegin iska qiiqiraya saddexda fadhiis gaalkii baan ku uri marka ninkii cadaa Ingiriiska baan ku uri kiniisadihiin London way maray yihiin
maxay idinku mashquuliyay kiniisadaha Indonesia iyo Afrika inaad ka shaqaysaan maad kuwiina ka shaqaysaan ma ku ilaa waa tan London kiniisad la tagaa ma jirto waa eber way kaceen waa dib loo iibiyay markaas ku war hadaaba diinta ka shaqaynaysaan aniga maanta ninka secular-ka ah ee diin la dagaalanka ah iyo ninka atheist-ka ah ee ilaah diidka ah waxa iiga dhow wadaadka kristanka ah ee diintiisa kristanka faafinaya ayaa iiga dhow laana diin ma faafinaya isaguna diin buu faafinaya religion group aan noqonayna ninka ilaah diidka ah iyo diin la dagaalanka ah kaasa iiga dhow strategical war day marka dagaal la qaadayo de wala القرآن كما قلت الله ده ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نصر الله يسوى أيوم كي مسلمين تقول سنة معها وكي كريستان كالرومانيين أي كجبين بيرشياك أي مسلمين تمكا كفر حيان أهل كتاب كي كريستان كهابا جبيي كوبي دبك عابدي مسلمين ما كجوجا inaga wacyi badan مسلمين kun iyo 500 sano ka hor noolaa ayaa maanta inaga aad inooga wacyi ilaahay baa quraan ku sheegay binasrillah waxa ku daba dhigay baan ku markaa kiniisadaha Afrika iyo Indonesia dadka kale maxaad u masiixiyeynaysaa adiga oo dadkaagii ay ka tageen shahran abana lama duubayo waa informal off record waxaan aad tiraahdaa way ha markaas wuxuu igu yiri sheek albis annagu dadkayagii diin laabtooda buuxisa uma hayno sida awgeed maanta waxay doonayaan iimaanka cid u buuxisa meeydaan kiniisado badan idinku masaajid u bedelin buu yiri London gudaheeda dadkayagii maanta waxay doonayaan diin u jawaabta nolol maalmoodkoodii uga jawaabtay doonay annaguna ma hayno waanu isdhaafnay marka maxaan u socdaa waa la jibiyay kiniisadii reer galbeedka wadaadadiina waa laga adkaaday Voltaire Diegel labadii nin ee gootihii Jarmalka ahaa qarnigii 18aad samaysmay Renaissance ba afka ayaa samaysmay waa la jibiyay markaas waxa la saddex jeer baan ku imanaya wadaado marka shaqaygu ma lihid waxaan ku imanaya ilmuhu markuu ii dhasho biyaha yar ee kiniisada ku daadaadi markaan isguursanayno khaatamka markaan xiranayna iyo xaajiyadu markaan waan ku imanayna markaan dhintanay aas la qabriga adigu aasi doontidna lacagtiisa la sii baxaya wala sax waan siibsanay xabaalahayga anigu saddexda jeer wax aan ahayn kiniisadu nolol maalmeedka yaani soo gali wadaadna hana nabad geliyo dagaal dheer oo dhacay wadaadkaasi wadaad mutakhallif u ahaa wadaadka masiixigii in laga badiyay ku faraxsanay anigu ka qaran maayo hadii wadaadka wadaad la midii uu sameysmo oo islaam sheegtana in laga badiyo ku faraxsanay isaga dana anjilciya halka anjilciya sumaha wadaadkii wax kale yiriyadaan orade arday jilciyo baan uga socdaa wadaadka masiixigii la jabiyay ee qarniga la jabiyay muslim kristankii fuqarada ahaa ee saboolka ahaa ee ay haysteen boqortooyadii dulmiga ku haysatay iyo kuwii la oran jiray dhulka haysan jiray ee lacagta lahaa markay isqabteen wadaadkii iyo kiniisadii waxay raaceen tujaartii bay raaceen waxay ka hor yimaadeen ayo saboolkii iyo shacbigii bay ka hor yimaadeen shacbigii baa nacay markaa shacbigii muxuu nacay kiniisadii buu nacay bible-kii buu nacay laana wuxuu ka soo horjeeda dareenkiisii iyo inuu wax noqdo aayisi buu ka talin waayay miskiintii reer saboolka hayda waxba aan haysanin halku wadaadka kristanku u hiilin lahaa oran lahaa boqor oo kaligi talibaatay dadka ka daa ku oran lahaa ayaa muxuu doortay maslaxadiisii buu doortay interestkiisii buu qaatay shacabkii markuu kacay way israaciyeen markaa waxay boqorna ma doonayno wadaadna ma doonayno maanta haddii markaa wadanada muslimiintii haddii ay jiraan dad xorriyadoon ah horumar raadinaya inay iska qaadaan daaha kali taliska iska qaadaan hadduu wadaadi u sharciyeeyo uu yiraahdo diin baa lagu haysanaya waa sax dulmiga qaado oo dulliga qaado oo isticmaalka qaado shacabku beritoole marka uu soo baraarugo ee uu kaco kaana ma doonay buu oran doonaa wadaadkana wuxuu ku dari diinta mana doonay diintaas oran doonaa
diintuna asalkeedu waxay u timid maxay u hiiliso saboolka iyo masaakiinta ayaa asal u hiiliso ay tahay saw muslimiintu xagga dhaqaalaha soo in badan imka economiga dhigtay idkuma jirto waay soo laba madrasado adduunka kama jirin madrasadii reer bariga ruushka ee communismiga ahayd Marcus Lenin iyo Engels Soma iyo madrasadii reer galbeedka Adam Smith liberal classic soo labada la idin ma dhigo iyo yaro Islamic finance ya soo shaqada uma dhigtid inta ma u sheegtay ugu dar inta okay labada kooxood ee dhaqaalaha adduunka maanta uu ku dhigay mid uu jabay ruushkii uu jabay yaro China ma haysto dhaqaalihii no more communism kama aha laakiin maxay toleen tii reer galbeedka ee Mareykanku hogaaminayba ayaa maanta jirta watan imka adduunku ku shaqeeyo oo ah hal qodob accumulation of wealth hantidu inay gacanta ugu jirto in yar boqolkiiba 2% adduunka boqolkiiba 2 ayaa waxay haystaan hantida adduunka korkii dul saaran boqolkiiba 98 populationka adduunka boqolkiiba 2 ayaa waxay haystaan maxay hantida adduunka hatta ta'aasan iyo dhulka saaran oo dhan boqolkiiba 2 haysta laana systemka saas ah waaya anu markaa wadaad baanahay islaam baa sheeganaya haddaan aniguna aan ciyaarta gala ka warrama accumulation of wealth oo hada lacagta iyo wadaadi hayaan ma fahmaysan mise iska aamusan ya hadday yiraahdaan in yar accumulation of wealth oo markaa ya la yado intaasi hayso hantidii ummadda oo dhan deedna magacyo islaam ah iyo magacyo farada aniga ninkan waxa noo abtiya nin booba is duca leeyahay أنا اللي كباب تقولون وقاعد أبتكي وحي يقول ولا المسؤول ولا أنت أسأل جريو واللي جاي ما قلبي يقول مرابحة مساعدة مشاكسة وحوض ميم كيه أنا لك أنت بيقول بلد هو ما حدا accumulation of wealth هنتدي وإنا أنا قعنت ويقول جرين عيار أما مقع كابيتاليزم استعمالان أما مقع كوميونيزم استعمالان أما مقع إسلاميزم استعمالان أنا عمامة الله يقول سر دين تبنعان وبريت كي لا يكون دولة بين الأغنياء هذا هو بس حتى سيستم كان حلقة إسلامكم حلول حلقة وسمي سيستم كان حلقة بيوام حي محل الدينية لعبت هنا أنا ميل كلية ku aruur in ka London marka tagtid waxaad arki reero 500 sano iyo kali wad maal qabeenka ahaa lana system dhaxal ma leh adiga maxaa lagu milyaneer baa sameeynaya 10 milyan dollar buu sameeynaya uu joogaya uu dhimanaya inta soo caruur uu ka tagay waa la kala jajabinaya nin walba 1 milyan buu qaadanaya lacagtii maxaa ku dhacaya in la qaybiyo lacagtii maxay ku dhac wareegaysaa dadkii laakiin in yar inay hadiya jeer ay haysato شكدي أبو ذرنا رضي الله عنه وأرضاه نحيت ولين حفظه إنه البحر من هاي البيت كيد جوكت إنه دبجل دونه كده يندونه النبي قاسي شيء قصص إن بدنوا إن جمده لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وما ذي ذي كهر ريجي واد كده يندون تنبي النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بطلابة ذراع بذراع واد كده يندون تان حتى لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه أو لسلكتم حتى يقالان قد كل عن هاي وتكذب قال دون تابين اليهود والنصارى ميابد أجد دابين النبي محمد مركاسير فمن هذا وأي هذا يا كلام أجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إن ماتا مركان يجي صدق كوحد باي صوبحي وحنا اسكتريا wadaadada dhalinyarada la sheekaystaan isku tiriya qaayska fadhiista basaska kora dadka dhageysta waxay ku hadlayaan doodihiina Facebook-ana waan dhageystaa kuma qoro laakiin waan dhageystaa dadku waxay yiraahdaan waan dhageystaa dhalinyarada waxay soo baxday saddex kooxood in dhalinyaradu ay tahay koox aan gool balahayn nolosha gaaya kamale gool nolosha kamale yaakul wa yashrab اسكعنا اسكعبا اكل اسكي ماده اشار يرو سربال قروح بدن هلو هاي اسو دو شقه يرو في عن هلنا موبايل يرو قروح بدن غاري يرو قروح بدن
ina yaro qurux badan ha wax allaala wax kurbado hayaaba maxay tolay ma jirto koox waa kooxdaas leesh lana noloshii baan maxay kala hayn غاية ما عنده جول ما عنده objective لا يدري لما يعيش وحالا لحو نولي هي وحو ديدي وحو دوني ما قرانيو كوح waa kooxdaas markaan yaray aanu qaahira tagnay ayaa waxa jiray filin kartoon ka magaciyalkii ay daawadaan filin kartoon baa jiray inan baa liisa loo jiray ila matalisa filinka inantiida kayn bay ku dhex lumaysaa markaas waxay arkaysaa arnab bakayle ay arkaysaa markaas oranaysaa bakaylo waan lumaye jidkii saxda ah ay tus markaas bakaylo ku oranaya halkeedu socotay waayay adigu lama ka luntu soo inaad tiraahid maha halkaas markaas ku tir meelna uma socon markaas bakaylo ku oranaya afarta jiho waa isku kaamide meesha doonto u dhaqaaqa dabaadi anagu ma waan qosqosayna markaan yareen ileen kartoonkan dadka maskaxdooda lagu dhisay ciyaalkii maskaxdooda lagu dhisayaaba falsafada ka dambaysa waa education kartoonku inaguna hooyo waxay tiraahdaa markay madbaxa ciyaalka shaytaankii usraad shaytaanka daawadaan kartoonka shaytaan inagu naqaana shaytaankii maxay iga dambeeyay daawanaysan anaad ma daawanaysan ya اللهم صل على سيدنا باك الفوز koox kooxda dhalinyaro meel allaala meel ay u socdaan ma jiraan kooxda labaad gool way leeyihiin waxbay garanayaan meesha u socdaan waxba uga bidhaansan laakiin waxaan isqabanin nolol maalmeedkiisa action blanking waxaan isqaban nolol maalmeedkiisii iyo wuxuu lahaa waan doonayaa baa isqaban uu doonaya islaamkii iyo aakhira iyo janno iyo umur rabaa sax laakiin wuxuu qabanayaa tii halka geynaysa maaha adeeg hadaba kooxdaas 50-50 gool waa leeyihiin laakiin shaqadiisii iyo goolkiiba kala ayaa kala duwan kooxda saddexaad waa koox yar aad u yar oo la kulmay oo arkay dhalinyaro ah wax kooxdaasi labadaas ilaahay isku biiriyay waa commitment waxay doonayaan wuu cad yahay shaash kama saarna wax allaale wax qabasho ka saarana ma jiro daily shaqada uu qabanayaana yoolkiisa u dhawaysaa hadduu wax akhrinayo hadduu cid la saaxiibayo hadduu sports ciyaarayo fan iyo sheeko iyo madadaalo hadduu muxuu ku jiro daa'iman wuxuu rabaa waxa uu qabanayo in goolkiisii talaabo inay muxuu ugu qaado waa koox yar kooxdaas وكوحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة تدكوا سيدي بقول نفو جيلة لا تكاد تجد منهم راحلة بقول كي بقف أكو جرب النبي قال مكحق كم كنا توم باكو جلا لأن يرى معلمين ما كان يمكن أدور بقول وقف هذا لجسان توم باكو جلا أنت كلام واسك أوراين حلو دقوا شهادة واسك قادنا يا لا بس وصيت هيدا أو صح فيري waxaan rabaa dad fara badan oo iska qaata waa jiraan laakiin ciidan bahasha rujin doonta ee meel dheer geyn doonta waa dad aad muxtalo u yar marka dadka ay tahay inay jaamacad ku aruursadaan waa dadkaas barigaan jaamacada furay ayaa waxaan sameeyay secondariyada Soomaaliland baan eegay waxa la yiri soos baa number 1 qaadan jirtay 2004-2005 markaas waxaan yiri ardayda soos number 1 gasha top 10 ka top 20 ka gasha intii hesha scholarship dibadda way hesha in allaale inta kale wax weyda badankooduna sabool bay ahaayeen لأن فلسفة صوص بعد الصبر اللي قاطو أنت إمك لا تعطبتي ما أنت هورينو سعد هيد إمك ولا تعطبتوا تجار تقطع كان كويتي أقول الله كأنه تجار تيبستي وحكستوا إنه الله كأنه وينو آخر ندر لنا موقت مركا سعد هيد ما كهرنا سي هيد تذكر مساكين تي صبر كأن لكن وبتكون very IQ سريو أي قاعدين جبت صوص بس برجع حنري أنت سكول شو دبته شيء سوكي انت كله انا فري wax ku siinay oo jiri markaas 5 sano ayaa waxaan aruursaday 200 oo dhalinyaro ah oo free ku siiyay economic IT inta aanu ma jeedo inteeda yar oo kala ku darsan jiray
yarba igu jirtay iskuuladu waa dayeyn damiinimaday dhigaan dantay uma soo lug digrii cadaway sidee doctor nacabay dhale tii hadraawide dabahuwan intayda yareed baa jaamacada xafiiska igu taalay markaas kooxda iyo hablo inama isku jiraan si gaar ah culayska u saari jiray markay dhameystaan habeen ku jahayga taginay kaalay kutuban ugu dhaxarrijay jaamacada waryaarahe warag isguraya aqoonna waad leedihiin ingiliishkiina uu dhisan yahay waryaarahe أنا باب الوداد بانه كتابك حاجة في عربي بحكو أخرية ونقول مبان ذيك باهنا ونقول مبان ذيك بيت جور تحي الحمد لله رب العالمين ما أنت دورية تواصل نكذب لحية تواصل نكذب بس وش الندى أي ما أنت هرجيس برعب بورم أي كجوجان هي حلك حتى الدولة الجودة هذا ما أنت أي كهيان اللي يراسي you cannot imagine فير براون أنا ولا كأركو ها ليش؟ لأن محارب ده وحود يقول معها وحود يقول أنت هذا يرنا كدرسه ما يكون ديدي يا أيها المعلم يا أيها المعلم ورادقوا أي تيجا دقيا يا أنت هذا يرنا كدرسه هذا فيزيكس كده دقيا وريه روح أخلاق وقدر هذا هو ماتماتيك دقيا إلى هو وريه هو جيران ورد إلى هو جيران أي هذا مركا أرض يجي محل لبدي أرمود با إسكو قدر إنه أقوم تي زمن كانوا وهي وهايستو حقي مسكحنا أن لقى حظنا أما أنو كم مرنين لأن والله أما إن لقى حظه وحكي له وشبطه أما مسكح حظه هي أي مرته قضب كاشنا وقضب قضب كلا الزمن كان إنه كنا نقول نهاي عانك وكوي هاي بندين شيء سوق بجبينا يا زمن واحد نجوجنا نفعي وما هي أجاك الله خير شيخ نحاول نوجد نفعي ومادي وماترياليست زمن كانوا يجونا هذي لدونا إلا قيحوا كلمة داسا كوسو بحيسا ومادي أنا محايد دنا تلفونك يا ندرا تنبأ يوجرته يا سلام يا تنبأ يوجرته يا الله صاحبي يا تنبأ يوجرته يا ريح يا تنبأ يوجرته يا سود وينيا تنبأ دائما ما هينا كلية معها وأدوك شو إذا لي وحو الصعداء قفكي وحو النقضي سنترلايزد الساقي بقى النقضي ما كاوحو ربا هاد إيا جير هدان دانتا إذا كا أركنا واكو جعله هدان دانتا إذا كا واينا مدمدو بالله كو يقانا هدان وحكا وايو خرش ياك واد قبطا آخرا كو دريا وانكو دعايدين مش كده وما حي أساسنا زمن مصلحي أو منفعة ساكا waxaan dhageysanay hindi buddhist buddhi muslim ahay jaamacad Mareykan baa loogu yeeray waa qolooyinkan spiritualistic la yiraahdo dad buu wacdinaya wacdi buddhist saaka dhageystay saajib يا أنا أصلا ياوي والبعض والله وعلي هذا بحاكوا قوة تبع كل واحد بوديستي بعد كوا جيس كده جيس وان دقيست ليش لأن مركيكو هذا فربا ويسوجيتي محيو يسوجيتي كلمة دو يجري وحو يجري بالك حديبو يجري وحكليه الدونك حيستا هدو يحي only العق waxaa tahay qofka adduunka ugu faqiirsan kelmadaas ka dhaqaaqi kari waay markaa if the only thing you have is money you are very poor markaas ku war wax kale ma raadinay ana ay war wi wali war taayadu baabadu raadinaya wadaad hindi maxaa tiri ha waxa kaliya haysataa haduu yahay biyo lacag uun wax kale oo lagu amaana hadaanad lahayn قيم هدانad lahayn akhlaaq hadaanad lahayn falsafad aanad xabaarsanayn waxtar aanad lahayn horumarin aanad lahayn hagarbax aanad lahayn hebel si aanad lahayn iska horumari aanad waxba aanad lahayn laakiin aan rich baan halkan ka aad tahay buur baa tahay buu ninkaas maxay kelmad kale ku xiray taas waa uu ku bilaabay kelmadu wadaadku ku xiray ma idin sheega ya hada waa kii hindiga ay oo idin sheegay wuxuu yiri inaad dad tahay inaad wuxuu yiri inaad leedahay dad waxaad ku garataa buu yiri fariiso ilaa ka daadato
يعني بين باكو هاي سو ما حنون باكو waxba tabana saadeen soo ma ilin dhibic ka tiraado buu yiri inta gacan ay kugu soo degdegtay ilintaada ma saxda bal eeg buu yiri markaas qof jira tahay maxna saaxiibo ma leedahay iyagoon waxba ka dooneen ku garab istaaga quraanku muxuu yiri wayuthiruna ala walau kana bihim waman yuqashu nafsihi hada kalam rabbi لكن بوديغنا هذه كو درده بوديغو اسكستا اوكي هيك كلام ربي الهي وحو ليهي ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان اد لهدهي حرم ان اد هورد لهدهي هورد ان اد لهدهي ان اد اوغولان كرتيد ان اقونتادا لا لهان كارو ما ها كليه in aad qirtid ardaygaad wax u dhigaysa iyo ardaygaad wax wada dhigataan inuu marmar ku dhaafi karo Allahu akbar laba ninoo macallin isku ahaa culamadeenii muslimiinta ahaa ayaa ardaygiiba kitaab weyn oo kitaabkii sheekhiisa kitaab ka weyn qoray markaas uu adeer sheekhow ii soo akhri kitaabka sheekhi baa kitaabkii soo akhriyay uu arkay yarkii inuu dhaafay yarkii waxaan uu qoray ninkan inuu dhaafay uu arkay markaas uu sheekhi wuxuu yiri anoo nool baad aastaye laakiin kitaabkaagu waa sax ويفهم استنادر هذا بيفهم سا وحوي انا نول horta aan idin sheegay oo ara ibi wixii ka dambeeyay adiga dambeesha la wareegaya laakiin kitaab xun baad qortay buu orad kitaabku wax kama sheegin laakiin kitaabku waa saxsan yahay binaadir waa darajooyinka maxay isku waa soo qiimay maxaa maanta Bill Gates soo ninka adduunka ugu taajirsan ma yahay misamaha laba inamood iyo inan buu dhalay warina tu wali waa oraydiya dhalinyaro laba inamood iyo inan buu dhalay $20 milyan buu account-ka ugu shubay waa Bill Gates wuxuu yiri intaas idinku filan carruurtaydii waxbarashadiina scholarship-kiina jaamacadiina small business hada doonaysan bilowdaan sanaf ani islaanteena aan isla gabownayna guriga yar baan iska deganaa isaguna $7 milyan buu account ku shubtay ha Bill Gates soo ninka uu ku taajirsan ma wixii uu soo haray ku geeyay muxuu mataqaanaa malaariyada wadankeena iyo TB-da wadankeena iyo waxbarashada adduunka global worldwide ayuu sadaqa uga tagay Bill Gates kaafir weeyaa waa gaal hada malaariyada inuu daweynaya TB-da inuu daweynaya naga ku weyn waxaan uga taaglaanahay warsakada bixiya ummadda wax siinay adeegada wadiyaaba say moogtay marba soo sawiriyo buuxba sideeday wadiyaaba sa warkana wuxuu bixinayaa wixiisii buu leeyahay adduunka idil waaninkii Obama la fariistay Bill Gates Obama la fariistay wuxuu yiri systemka waxbarashadeena Mareykan gaab weyn baa ku jira waxaan ballan qaadayaa inaan adduunka soo gaarsiiyo Finland baa ka horeysa waxbarashada Mareykanka 6 iyo 50 Finland waa 1 Mareykanka waa 56 UK-na waa 37 Finland ka marsa Finland dadka soo gaarsiiyo buu yiri ana lacagta la baxayo buu Obama waxba idin kama rabo buu yiri waa nin u diyaara budgetka Mareykanka oo dhan ee waxbarashada inuu dhigo adeer maxaa sameeyna marka حاسمي وات اعجاب ولا اعجاب سقف يموت اعجابك ودعي موت هذا ترجع وترجم حتى اللي قال واتي وعثمان بن عفان محمد كسمي صلى الله عليه وسلم لو محمد قال دون بخ فقراء صبول با يمد waxay yiraahdeen anaga waxaan ku raacna ma hayno lacagna ma haysano lacagna siiyo fardo iyo waxaan korkorno markaas uu nabigu la ajudu ma ahmilukum alayhi waxba idin ma hayo quraanki baa fasiro wuxuu yiri way jeesteen iyagoo ilmeynaya inaanay haysanin waxay dar ilaahay u la baxaan ee qiimaha bay values-keega maxay la ooyayaan inaanay waxba haysan bay la ooyayaan qaar waxaysan waxaad ku baraysaa wax bixiya nabi quraankuna wuxuu sheegay tawallu wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma Usman baa yimido iyagu halkan ku ooyay war maxay idin helay nabiga naga tagayo maxaa doonaysaa fardo iyo ana bixinayo on the spot cash ariyaare baasha markaa haysiis oo rayd ba ana bixinayo biiraadeer gebigiinu nabiga waad raacsan buu iyagu iyo farxad nabiga soo sar markaas wixii Umar baa Uthman baa wixii nabi Maxamed oo la wareegay sallallahu markaas nabiga yiri ilaahayo Uthman raali baan ka ahay ilaahu Uthman raali ka noqodna
wuu ka gooyay maalintii buu ka gooyay Soomaa maalintu marka waa ka valid marka waxaan yaan idinku noqon marka wax baranaysan adduunka aad u socotaan iska saboolnimada qurux badan wax xun ma hada ninkii xoreeyay Hindiya soo gaandi ma hayd ayaa Mareykanka Ingiriiska lagu casumay maamuusa say xidhaan mataqaanaan maamuusteenu kala xidhaan markaad ku bada ciyaartaan maamuusa maxaad samaysaan inta halka daba soo galisaan daynamadu ku ciyaartaan halkii buu soo galiyay isagoo lagu yaraan oo dhawaan wato ul yar wata ayaa boqoradii Ingiriisku la fadhiisatay nin professor oo British ah taayga xidhan ayaa la yaabay waxay xidhan tahay buu maamuusna ka dambe aad soo galisay yaa loo yar oo dhawaan waa Gandhi markaasuu yiri waxay xidhan tahay uu yasayaade markaasuu Gandhi yiri intuu taayga taabtay buu yiri kana waa maxay adna markaasuu necktie baa kan necktie baa leeyahay markaasuu kana back tie baa Gandhi I love Gandhi wallahi ya ma bega qosnay wuxuu yiri waxa la yiraahdaa buu yiraahdaa back tie baa baro buu yiraahdaa marka atamanna inaad wada noqotaan back tie-ga oo waxaad haysataan aad qiimaysid waxaad haysid qiimayso waxaad tahay qiimayso Allah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo quraanka agtiina qiimaha ku lahaado thaqaafada iyo waxbarashaduna agtiina qiimaha ku lahaato adigu hays waayin hadra wuxuu London uga yimid markuu daba huwan dhameeyay 800 bayt ayaa wuxuu yiri ma soo istaagay bil wada London ku taal buu yiri roob baa da'ay buu yiri dadkii oo dhanba gaariga oo dhanba ay dhaafo buu yiri maano Hargeysa iyo Burco joogi lahaa la idaafi lahaa buu yiri hadra wada ku dhaafi leeyahay markaas yiri intuu eegay buu yiri waan iswaayay waa concept psychological alienation qofka ku dhaca waa cudurrada ku dhaca kiiniyada laga siyaaba waad ka jirtaa laakiin ma ogid waxa tahayba madmoodo walla ku yaqaana mar badhan baad socotaa cid kasta ku haysan karta kadib marka London ma joogay waa iska imanaya jumhuuriya qolooyinka adaadimka tagtaan archive-ka jumhuuriya journal-keenande archive-ka hadaad tagtaan maalintuu hadraa Hargeysa ka soo dhaadhacay ayaa wuxuu waan ishelay halkiina waan hayaa buu maxaad ku maqneed baa la yiro halkii baa inoo doonay buu halkii baa inoo soo helay daba huwan bay noqotay halkii ma dadayna ina odaadero Burco joogo reer hebel baynu Burco u naqaan hadraa Soomaa jeegaantiide inta Soomaa intaan ma dhaafayno mushkil baa ina haysataa waa ummad aan meel gaarayno musiibo Ilaahay ku riday ma inuu yahay filasuuf ma inuu yahay aqoon-yahan ay tahay gabayadiisii la diraaseeyo oo la fasiro oo aayado loo eego oo xadiis loo eego oo la kobciyo laga soo qaato maxay model aqooneed jaamacadu ay ka soo qaataan oo hooyalka jaamacada hooyo loo bixiyo jaamacada loo bixiyo qof walba uu leeyahay Mareykanku ragoodii aasaasay jaamacadooda ugu magac dareen marka adeeraya hadalku waan ku raajay waan ku daaliyay waxa tiin hay loobina laba ha isyasina ha isquursanina aqoonsada idinku markaad yareedeen siirada maxay loogu sheegay qofkii ugu horeeyay Nabi Maxamed rumeeyuha ragga yuha dumarkana caruurtana soo intay noloma dhigi siirada markaynu yareen markaan weynaaneen quraanka akhrinay waxaan ogaanay inaanay jawaabahaasi sax ayna sheegteen in jawaab kale jirto quraanka ku jirtaan ogaanay quraanku wuxuu leeyahay cidii koowaad ee Nabi Maxamed rumaysa Nabi Maxamed buha isaga rumeeyay aamana ar-rasuulu kadib Abu Bakr imanayade laakiin waxa sidii hadaan aaminsanay ma cid baad qancin kari adigu hadaan aaminsanay aad muslim tahay Soomaali aad tahay ethics ka soo jeedid dhulkan aad joogtid aad doonaysid dhulkan aad horumarisid aad wax adoo sabool waxba aan haysanin oo gaariyaaga yar iska